gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa magaalada Muqdisho ka furay kulan istiraatiiji ah oo lagu soo bandhigay qorshe fulineed horumarinta awoodda iyo abaabulka kheyraadka. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday qaramada midoobay, ururada caalamiga iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda. Gudoomiye Maxamuud Macalin Cabdulle oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa ku adkeeyay muhiimadda iskaashiga iyo isku duwidda hay'adaha si wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada iyo musiibooyinka kale. Sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay abuurista sanduuqa qaran ee maareynta khatarta musiibooyinka, kaas oo lagu taageeri doono wacyigelin, jawaab degdeg ah iyo soo kabasho. Gudoomiyaha wuxuu ugu baaqay ka qaybgalayaasha in qorshaha cusub loo rogo tallaabooyin wax ku ool ah, isagoo carabka ku adkeeyay in ujeedada ugu weyn ay tahay adeeg hufan oo loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed.